تعجب الخلق من دمعي ومن ألمي وما دروا أن حبي سرته بدمي أستغفر الله ما ليلى بفاتنتي ولا سعاد ولا الجيران في إضمي dhegaysta dhigtaada furo sheekadan soo socota aad u dhuux waxaan booqasho gaaban ku tagay dal inta badan soo galootida iyo shisheeyaha laga tarxiilo oo qofka ayaama joogaba laga musaafiriyo dalku waxa uu ka koobnaa 2 jasiiradood oo waaweyn waxaana ka talinaya boqor awood badan oo ay dadka oo dhan ka baqaan markii aan gegida diyaaradaha ka soo degay ayaa lagu wargeliyay dhowr qodob oo laga baahan yahay inta dalka joogo qodobada ayaa waxa kamid ah in boqorka ka cabsado aadna u ixtiraamo inaan xeerarka dalka uu gaansaday inaan wasiirka dastuurka aad ula shaqeeyo kuna daydo iyo inaan waqtigeyga intiisa badan ku bixiyo ka shaqeynta barnaamijyada wax u qabsaa oo dawladdu mashaariic horumarineed kaga fulinayso jasiirad labaad ay xukunta ama gacanta ku hayso sidoo kale waxa la sheegay in muddada dalkan jooga ay xaaladdeeda si gaar ah ula socon doonaan 2 sargaal si loo hubiyo inaan xeerarka dalka uu gaansanayay in kale dhammaan qodobada waan ogolaaday intii dalka joogayna waxaan aad uga shaqeyn jiray barnaamijyada iska wax u qabsaa ay dawladdu jasiiradda labaad ku dhisayso sidoo kale waxaan ka baqi jiray aadna احترامي جري بقولك ويصير كتصور كان هذا ينوش على هناك يسمى فلكنا وكذا شري محايا لأن قيمة بدن أيوها مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم waxaan sidaa ku joogaba sharciga ayaa iga dhacay waxaana la gaaray xilliga la tarxiili lahaa askarigii soo qaban lahaana waa la soo diray askariga ayaa yimi waxaan uu adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa si uu argagax geliyo isla mar ahaantaasina qasab igu kaxeeyo markii uu sunta igu buufiyay ayaan suuxay oo dhinac u dhacay asna uu iga tagay markuu arkay inaan miyir beelay dadkii xaafadda ayaa igu soo baxay oo igeeyay xarunta dambi baadhista ee CID-da si waxa igu dhacay loo ogaado anigoo ku jira qol mugdiya oo CID-da ku yaala ayaan soo miraabay oo indhaha kala qaaday dhinacyada ayaan eegay hayeeshe waxba waan arki waayay waxna waan maqli waayay aw khadiman cindahu min asar alkhadam تجود بالدمع عيني حين أذكره عبارك بعدي أيها وحي سو قال لبا سرقال waxaanay weydiiyeen magaca boqorka wasiirka dastuurka iyo nooca dastuur ee dalku uu leeyahay inta ka dubna way iga tageen أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي مولاي صل maalinta ayaa albaabka qof iga furay sidoo kale waxaan maqlayay intaan albaabka iga furin dhawqa seeri ama furin bi xoogan oo agagaarka xaruntaasi ay dhidoo dhan isqabsaday markii aan banaanka u soo baxay waxaan dhax ku dhiftay dhammaan dadkii CID-da ku jiray oo barxadda qora tuban isla barxaataasina loo kala saarayo intii dambiyada lagu helay iyo intii lagu waayay nasiib wanaag intii lagu waayay ayaan kamid ahaa waxaana la tarxiilay jasiiradii labaad ee dawladdu ay gacanta ku haysay markii aan jasiiradda labaad tagay ayaa halka waxa igu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururka haweenka saraakiisha militariga iyo wasiirka dastuurka ee jasiiradii hore laga soo tarxiilay soo dhaweyn kadib ayaa waxa lagu wargeliyay inaan dib loo tarxiili doono isla mar ahaantaasina barnaamijyadii iska wax u qabsay dawladda aan laga baahnayn sidoo kale waxay sheegeen in askari dambe suuta dadka ka ilmeysay adeegsan doonin maalinta waxa ka dambeeyay waxaan ku noolaa nolol raaxo badan waxaan guursaday xaasas badan waxaana la siiyay guryo aad u qurqurxoon arinta cajiibka ayaa ahayd in dumarka jasiiradda ku nool oo dhan aan waxba dhalin dhageystayaal intiina sheekada ku baraarugtay mooyaan inta kale ayaan dal leeyahay dalka uu ninkaasi booqashada gaaban ku yimid waa adduunyada labada jasiiradood la sheegayaan waa adduunyo aakhiro boqorka awoodda badan ee dalka ka taliyay waa ilaahay wasiirka dastuurka waa nabigeena sallallahu alayhi wasallam dastuurka laga hadlayo waa diinta labada sargaal ee xaaladiisa sida gaarka ula socotay waxay labada malag ee garbaha qof kasta ka saaran sidoo kale la barnaamijyada iska wax u qabsay mashaariicda horumarineed jasiiradda labaad looga fulinayaa waa cibaadada askariga inuu soo qabto loo soo diray waa malagii nafta ka qaadi lahaa sidoo kale xarunta dambi baadhista ee CID-da waa qabriga qolka mugdiga ay ku jireen waayilka seeriga uu maqlayay waa buunka barxadda weyn ay dadku isugu soo baxeen isla mar ahaantaas loo kala saaray intii dambiyada lagu helay iyo intii kale waa maalinta qiyaadaha ee aad ku daran jasiiradda labaad ee loo tarxiilayna waa jannada qaybaha kala duwan ee bulshada halkaas ku soo dhaweeyay ururka haweenka ugu horeeyana waa xurulciinta saraakiisha militariga waa saxaabada wasiirka dastuurkuna waa nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam arinta cajiibka ay waxa weeye dumarka xurulciinta inayna waxba dhalin saa caruurba looma baahnaa fi turbati alwahmi bayna الكاس والصنم يا ليتني waa diyaarintii iyo tabintii liibaan xirsi abwan hareeri intaynu sheeko cayn kara mar kale dhageystayaal ku kulmi doono sida ay nabadgelyo